dhalinyaro kusoo dhawaada Muqalkena maanta oo aynu ku baranayno sida loogu shubto Linux adigoo isticmaalaya Virtualisation. habkani wuxuu noo sahlayaa inaan Linux ku dhex isticmaalno Operating System-keena Cadiga inagoo u baahnayn inaynu ka guurno gebi ahaanba Operating System-kaasi. waxaynu soo kala qaybta dambe ee Muqalkena kula wadaagaynaa qaar ka mid ah commands asaasiyaadka ah ee muhiimka tahay inaad barato iyo ilaalaam yar oo kooban. ugu horeyn soo gal browserka isticmaalayso kadibna waxaad ku qortaa kali.org si aad u tagto website-ka Kali. kadibna taabo get Kali waxaadna sii doorataa virtual machine maadaama aan ku isticmaalayno virtual machine. kadibna sii dooro virtual machine-ka isticmaalayso muuqaalka waxaan ku isticmaalaynaa virtual box oo ka mid ah software-da loo adeegsado virtual machines-ka. kadibna download taabo waa ku soo degayaa ogaa kadib ay isku soo noqonayna. markuu soo dego waxa ku soo baxaya file-kan oo ah zip file. kadibna extract c markuu extract soo ku soo baxaya folderkaas ayaan ku jiraa file-ka isticmaalayna. dad yar fiirsatay wada aragtaa folderkan inuusan ahayn iso file. hore markii ugu shubanaynay Ubuntu waxaynu isticmaalnay iso file. hadda waad u jeedaa inuusan ahayn iso file. xagga dambe aan ku sharaxaynaa sababta inuu isticmaalayno file-kan extension-kiisu yahay .virtualbox. kadibna soo furo ama soo degso virtualbox. haddii aan ugu jirin sidan ayaa kusoo dejisan kartaa. ku noqo browserkii waxaad ku qortaa virtualbox kadibna download taabo. kadibna waxaad sii dooranaysaa Operating System-ka aad isticmaalayso. haddaad isticmaalayso Windows ayaad degsanaysaa. haddaad isticmaalayso Mac ayaad degsanaysaa. Linux distributions kala duwan haddaad isticmaalayso. kadib iminkan waxaan isticmaalayaa Mac OS kadibna Mac ayaan dooranayaa. markay ku soo degaan labadaasiba si fudud ayaad u install garaysan kartaa virtualbox. next taabo kadibna aan soo furino virtualbox. haddaba halkan isla fahanno hore markiinu sameynaynay Ubuntu waxaan sameynaynay inaan taabano new balse maanta waxaan taabaynaa add waayo waa inoo diyaarsan yahay already oo ma rabno inaan dejisano mid cusub. waxaan soo dejisanay waa virtualbox file ay ku dhammaystiran yihiin waxyaabaha u baahan inaad set up garayso oo dhan. marka already waa la set up gareeyay mana baahan inaad waxyaabo badan doorato. kadib waxaan ka dooranaysaa meesha uu yaalo file-kaagii desktop-ka inuu yaala iminka desktop-ka sii dooro kadibna open taabo kadibna start taabo. sidaas fudud ayaa uu noogu soo galay Linux. hore waxaanu sameynaynay inaanu set up garayno storage-ka waxyaabahaasi aynu waxaadidno virtualbox-ka balse iminka already waa inoo set up garaysan yahay. haddii aad wax ka bedbedesho sida storage-ka isticmaalayo kale ama RAM-tu isticmaalayo si fudud ayaa setting-ta uga bedbedeli kartaa setting-ta virtualbox-ka. markuu ku soo baxo kadib waxaad kan gelinaysaa username iyo password. markaa default ahaan waa Kali passwordkuna waa Kali. haddaad rabto ka bedelan kartaa. kadibna soo kacay kaas saas fudud ayuu nagu soo degayaa. markii hore hawl badan ayaynu mari jirnay oo in waxyaabo badan set up garayna ayay ahayd laakiin iminka already waa inoo diyaarsan yahay. hadduu fiirsato iminka application badan oo inoogu diyaarsan tools badan ayaa noogu jira web applicationalized database passwords wireless waxyaabo badan ayaa noogu jira forensics waxyaabo ka mid ah applicationada waan baran doonaa in badanna adiga laga rabaa inaad isbarto oo aad sii baadho hana degdegin oo si degan u baro. hadda waxaa laga yaabaa inaad dareentay in meeshan space badan hareeraha ay yaalaan oo aysan si fiican u fit garaynayn shaashadda. markaa si fudud waxaad samayn kartaa inaad taabato view kadibna sii dooro virtual screen kadibna halka wax ka dooran kartaa resolution-ka aad rabto. resolution-ka ugu fiican ee meesha dhan wada deeqaya waa kan 1280x7. si fiican ayuu shaashadda inoogu fit gareeyay. waxaynu sidoo kale muuqaalkeenan ku baranaynaa qaar ka mid ah commands-ka Linux ee basics-ka ah si aad hadhow si fudud ugu isticmaali karto. commands-kan dhalinyar badani muhiimad ma siiyaan. waxba marka hore ka bilaabaan inay isticmaalaan commands-ka waaweyn ee toolska laakiin commands-kan waa basics aad bayna muhiim u yihiin inaad isticmaasho. ugu horeyn aynu ka bilowno pwd. command-kan waxaa lagu magacaabaa print working directory. waxaa noo sheegayaa working directory-ga ama folderka aad hadda isticmaalayso ama aad hadda taagan tahay. badanaa ereygaas directory ayaa aad loo isticmaalaa wax kalena hamoodin ee waa folder uun. marka print working directory wuxuu noo sheegayaa folderka aad iminka isticmaalayso ee aad files-kaaga ku abuuri karto kuna kaydsan karto iyo wixii kala samaynaysoba.
كمان labaad ee muqalkena ku qaadanayna waa ls ama list waxaanu sheegayaa faylasha uu ka kooban yahay directory-ga aad hadda joogtay marka iminka waxaan joognaa home-kii waxaana files u ah documents downloads iyo waxyaabahaas oo dhan haddii aad rabto inaad aragto xitaa kuwa qarsoon ee aan la soo bandhigin waxaad raadin kartaa calaamadaas minuska ama loo yaqaano hyphen iyo a kadibna waxa ku soo bixi kara haddii files qarsoon ku jiraan directory-gaasi كمان saddexaadi waa cd ama change directory waxaad noo isticmaali kartaa inaad ku bedesho directory-ga hadda joogto una bedesho mid kale tusaale ahaan haddii aad rabto inaad files ka soo qaadato ama aad ku samayso desktop-ka waxaad oran kartaa change directory /home/kali/desktop markaad intaa qortid waxaad iminka files ka samayn kartaa directory-gaas desktop-ka ah halkaas kali waxaad ku bedelan kartaa username-kaaga iminka kali ayuu noo ahaa username-keenu saasna uu isticmaalay command-keena ku xiga aan ku baranaynaa waa make directory oo ku abuuri karto directory ama folder cusub tusaale ahaan make directory lagu magacaabo ktag waa kaas uu inoo sameeyay haddii rabto inaad delete garayso waxaad simply qoraysaa remove directory kadibna magaca directory-ga aad rabto inaad delete garayso ee raacinaysaa waxaynu ku xigsaynaa command-ka touch oo aad ku samayn karto file cusub oo madhan sida text file oo kale waxaad qoraysaa touch kadibna magaca faylka aad rabto inaad bixiso tusaale ahaan work kadibna extension-kiisa raaci sida inuu yahay text file okay haddii rabto inaad fayl copy garayso kuna copy garayso folder kale ama directory kale waxaad isticmaali kartaa command-ka cp adigoo qoraya cp faylka magaciisa rabto ama directory-ga aad rabto inaad copy garayso haddii rabto inaad copy garayso directory dhanna waxaad ku horeysanaysaa hyphen r kadibna magaca directory-ga aad copy garanayso kadibna meesha aad u wado okay command-keena ku xigay waa move ama mv oo aad ku bedeli karto magacyada folderska ama fileska sidoo kalena aad ugu rari karto directory cusub okay haddii rabto inaad delete garayso file waxaad isticmaali kartaa command-ka lagu magacaabo rm ama remove waxaynu hore u soo marnay remove directory balse waxaad command-ka hore ku delete garayn kartaa waa directory madhan kan waxaad ku delete garayn kartaa hal file oo keliya sidoo kalena waxaad ku delete garayn kartaa directories ay ku jiraan files oo aan empty ahayn ama marnayn kana taxadir waayo delete-kaasi waa permanent ugu dambeyn command-kan aynu muuqaalkan kusoo gabagabeynay waa man command-kan waa mid aad muhiim u ah waxaadna ka helaysaa xogta command-iska kale oo dhan yacni shaqadooda iyo sida loo isticmaalo tusaale ahaan seen hore u soo marnay haddaynu ku qorno ls waxaa noo soo baxaya macluumaadkiisa oo dhammaystiran halkaas ood ka akhrisan karto okay tobankaas command aad ayay muhiim yihiin inaad barato qaar kale oo badanna telegramkeena ayaynu soo dhiganaa haddii aad la idmo sidoo kale اعلامك ay rabnay inaan la wadaagnay waa inaan u baahannahay laba cashir oo aad muhiim u ah practical winoo soo socota dhalinyaro waxaynu ugu samayn doonaa qaar ka mid ah toolskan ka buuxa Kali-Linux iyo virtual labs aynu samayn doono balse laba cashir oo ku saabsan cryptography iyo algorithms ayaan rabnaa inaan ka horeysino cashirada practicalka labadaas cashir aad iyo aad ay muhiim yihiin waxayna ka caawinayaan inaad fahanto tools aad u badan marka labadaas cashir si fiican loo fahmo markaynu soo galino wixii su'aalaad ah ama cilado ah waxaad ku soo gudbin kartaa telegramkeena linkigiisu wuxuu saaran yahay description-ka wassalaamu calaykum